tababar ay ka faa'iideysteen haween Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee ururka Isuron. Tababarkaasi ayaa waxa uu ku saabsanaa sida aad ula socon kartid caafimaadkaada. Waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay oo la baray haweenka ayaa waxaa ka mid ahaa cudurka kansarka. gaar ahaan waxaa la sii faahfaahiyey kansarka ilmagaleenka ku dhaca iyo kansarka naasaha. tababarkan ay soo qaban qaabisay ururka Isuron oo saldhigeedu weyn u yahay magaalada Minneapolis balse xarumo kala duwan ku leh magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay ee gobolka Minnesota. Fortune Weli oo ah madaxa iyo aasaasaha ururka Isuron isla markaana ku takhasustay caafimaadka dadweynaha ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in lala socdo caafimaadka iyadoo sharxaad ka bixisay wadiiqooyinka loo mari karo qofkii doonaya in uu sameeyo baaritaan la xiriira dhanka caafimaadka. mid ka mid ah dumarkii ka soo qayb galay oo la hadashay TV-ga Universal ayaa sheegtay in tababarkani ay ka heshay isla markaana ay ka faa'iideysatay macluumaad aad u badan ee la xiriira caafimaadka waxayna sheegtay in ay la sii wadaagi doonto asxaabteeda. maanta waxaan isugu nimid xarunta Isuron waxaan baranaynay xanuun ku dhaca dumarka intooda badan oo laga helo minka afkiisa kaas oo magaciisa la yiraahdo HPV marka la soo gaabiyo. runtii xaqiiqadii xanuunkaas hore mid aan u garanayna ma ahan ama aniga kulito ani ahaantayda ma aanan aqoonin. waxaan ka faa'iideysta maanta wax badan. waa jirtaa inaan baaritaanadaas samayno laakiin marka aan samaynayno jack-upka sanadka baan ku darnaa laakiin hadda wax badan ayaan ka fahamsanahay. haddii aan tagno meel waxaana la hayo waa dhihi karnaa xanuunkaas nala ka baaro waa u baahanahay. marka waa inaan ka wada faa'iideysanaa xanuunkaas iska baarnaa wax wanaagsan ayaana ka kororsanay Isuron maasha Allah. hadda walaalaheena waxaan ku baraarujinaynaa meel kasta oo joogtaan inaad ka faa'iideysataan. waxaana la jooga maanta qolada Cook Clinic dad ka socdo oo dhaqaatiir ah oo family dad badan ah. marka insha Allah ku soo dhawaad. Assalaamu calaykum. magacayga waxaa la yiraahdaa Aamina Faarax. Michelle oo ka mid ahayd dadkii bixiyay cashirka ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in ururka Isuron ay kala shaqeyso wacyigelinta bulshada gaar ahaan caafimaadka. So I'm very honored to be here at Isuron. So Isuron has been working with us on the MC3 project for about 5 years. And really helping us to learn again the best ways to do research, which is have research be led by the community, have community really showing us the best way to come up with solutions, and having community tell us what their priorities are. And really that's what Isuron has done for us. So we're very pleased to have been part of this collaboration and really see that the results of this will make a difference in terms of cervical and breast cancer screening for Somali women.